بسم الله الرحمن الرحيم وغورين وزيرك arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta federalismka mudan cali xildhibaanadii senatarada mas'uuliyiintii hore ee baarlamaanka gudoomiyaashii hore iyo haddana ururo xisbi oo madaxka ururada xisbiyada gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenkiisa marti sharafta kala duwan ee dhammaan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka من عبد الكريم دمان وحليها دمان وحيد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي برنتي وحان أن وفرح سنة إن المانتا قوب جو كأهانو صوب بندقست لصوب بندقي ترى ديوان جلس جوال كبنادر كو أدن دور شوين كقولياش ديجانك رنتي muhiimad gaar ah u leedahay dadka deegaanka gobolka Banaadir in laga hirgeliyo doorasho ee doortaan dad u adeego una qadmeeyo mataqaanaa danahooda iyo waxa ay u baahan yihiin waxaan inaan sheego rajada weyn ee qabaan dadku inay aad u weyn tahay doorashooyinkana ay yihiin doorashooyin hadda cusub oo marar badan sidoo gudoomiyaha doorashooyinka sheegay inay ahayd markii u dambeysay waqti dheer dadku marka rajo weyn ay ka qabaan inkastoo fahamka intuu la egyahay iyo intay ka og yihiinba ee yar tahay marka si loo gaaro rajada ay qabaan inay helaan dad ay doortaan oo u adeega iyaga waxay la tahay juhdi badan inay u baahan tahay juhdigaasna uu yahay juhdi u baahan in la iska wada kaashado lagana dhabeeyo sidii uu hirgeli lahaa doorashooyinkana sidoodaba ma aha mid xilliga doorashada iyo diiwaangelin iyo codeyn ku ege waxaa jira xaalado badan oo ku gadooman oo u baahan in iyaga naftirkooda wax laga qabto si mataqaana ay u noqdaan kuwo miro dhal ah waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay in gobolka Banaadir laga hirgeliyo doorashooyinka golaha deegaanka maxaa yeelay wax badan ayay u baahan yihiin dadka deegaanka inay ku helaan xuquuqdoodii asaasiga ee muwaadinimo iyo adeegii ay u baahnaan lahaayeen nidaamka dowliga ah waxaan aad iyo aad u bogaadinaa dadaalada hadda socda iyo sida hadda wax loo wado waxaan aad iyo aad hadda warbixintan la siinayay aan runtii aan ka dhaxlay tahay ama ka ogaaday tahay in muddadii isdiiwaangelinta ay xirmatay ilaa hadda in la saxayo waxyaabihii qaladaad ka dhacay waa su-aal nagu taagneed waa guddiga doorashada arrintaas waan ugu hambalyeynaa inay saxeen qaladaadka ka dhashay markii diiwaangelinta socotay in dib intii lagu laabtay la saxo waana wax aada iyo aada muhiim u ah waxaan kaloo rabaa inaan ku baaqno haddaan bulshada rayidku nahay in guddiga doorashooyinka ay xaqiijiyaan madax banaanidooda ku aadan sidai u maamuli lahaayeen doorashooyinka runtii ka qabsoomidda gobolka Banaadir deegaanada degmooyinkiisa doorashooyin ilaa ay xad lagu kalsoonaan karo waxay fur u noqonayaan in deegaanada kale laga hirgeliyo doorashooyin rasmi ah marka waa sina waa u tijaabo sina waxa waaye haddii la gaaro mid keeni karto guul iyo diil dadkuna ay fahmi karaan ama ku kalsoonaan karaan in doorashooyinka la qaban karo marka runtii waa xaalad aad iyo aad maaragta u baahan in si fiican loogu taxadiro lagana kaashado si fiican la isaga kaashado marka madaxbannaanidaas aad ay muhiim u tahay waxaan kaloo soo jeedin lahayn ururada siyaasadda in aada loogu fududeeyo accesska waxyaabaha ay ku qabsan karaan inay qabtaan campaign waxa ugu muhiimsan ugu horeeya waxay tahay idaacadda qaranka inay u heli karaan access ay ka sameyn karaan doodahooda iyo fariimahooda ka gudbi karaan tasiilaad badan loo fidiyo si mataqaanaa ay u noqoto tartan markaa runtii suurtagal ka dhigo inay cid walba markaas daneynaysa inay golaha deegaanka kusoo baxdo ama codkeeda ku dhiibato ay u noqoto mid ay heli karaan ugu dambeyn waxaan rabaa inaan halkaan haddaan bulshada rayidku waxyaabo badan oo u baahan inay doorashooyinka ay noqdaan kuwo oo runtii suurtagal noqdo ayaa rabnaa inaan gacan ka geysano waxaa ugu muhiimsan waxay tahay
ilaalinta ninkii muwaadinka wax dooranaya ama la dooranaya xuquuqdiisa asaasiga ah aaday muhiim u tahay. amniga doorashooyinka aaday muhiim u tahay. dadku in la baro ay ogaadaan wax ay dooranayaan is wax u dooranayaan idan aad u baahan tahay. baahi weyn ayaa ka jirta arrintaas oo wacyigelin badan ayaa loogu baahan yahay in laga hirgeliyo oo weliba joogto ah. waxaan aaminsanahay waqti inuu aad cariiri u yahay, laakiin haddii la dadaalo wax la sameyn karo. maxaa yeelay 3 November hadda haddii wax dhacayaan bili baro ayaa ka haray. dee dadkuna waa magaalada waa badan tahay. waxay u baahan tahay marka wacyigelin badan oo runtii suurtagal ka dhigi karo in maaragta dadku ay ogaadaan waxa ay dooranayaan iyo qaabkii wax u dooranayaan. procedureka doorashada, shuruucda doorashada iyo qabsoomideeda in la iswaafajiyana waa wax suurtagal ka dhigi karo in la aamino, lagu kalsoonaado natiijada doorashada. taana waxaan rabnaa inaan guddiga aan kala shaqeyno haddii aan la yidhaahdo. waxaan rajeynaynaa inay doorashadan ay noqoto mid runtii cabsida laga qabo ama suurtagalnimadeeda ay noqoto mid markaa u noqoto tusaale meelaha kale sida loo qaban karo. golaha deegaanka waa aas-aaska dowladnimada waaye. haddaan golo deegaan jirin runtii dee maamul goboleed iyo dowlad federaal ah la xisaabtankooda meesha ma imaan karo, mana geli karo. marka degmooyinka aaday muhiim u yihiin, waana meesha aas-aaska oo bulshadan ay kaga xirman karto dowladnimada, la xisaabtankan ka bilaaban karo. haddii wax kastoo adeeg bulsho la sameynayana degmada laga sameyn karo. gobolka banaadir degmooyinkiisa baahidaas badan ayay qabaan. waxaan rajeynaa doorasho rasmi dee dhacdo oo marka laga si fiican looga shaqeeyo inay marka suurtagal noqon karto in mataqaana adeegooda dowladnimada ay rabeen inay helaan. aad iyo aadaan ugu mahadcelinaa martiqaadkana laga casuum halkan. waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.